السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادا أصحابتي إذا كحرن جنال كادي واي دي أكو عصبتها سبسكرايب نصار جوك كده كومنتي والك صبحي يا أنا وكاك محد إليها مفهمت هذه هذا وما حصنتهاي هذا أصحابتي إذا هل نقط وحو ناكس واي أصحابتي عنشور أوفيشيال أصحاب غالي واي أصحاب شرف له saxaabteeda kale oo hore ila joogtana aad iyo aad u mahadsantihiin meeshiina kasii sheer gareeya fiidiyoga aragtiin sheer ku qabta comment waana ka soo baxsha idin kaga mahad celiya anigana waa hee gabadhiini maamadiini awreertiini walaashiini dhamaantiin inta isku ahayd waa in faanteen ya idin kaga mahad celiya sida wanaagsan oo ila socotiin ila sheer gareysiin commentyalka ajaa'ib kale oo la heli kara ay iga soo bixisiin ما شاء الله أيام فيديو كنا كر يوتيوب كنا كر وصعدا ضدك إن إيشار كريه أو حتى جروبية ذي مالك تقدره وذي كجمع هاد إليها هذه هذا أمها سنتين ضد بدنا إلى الشقية أنا كلا جايميه يوتيوب كواس لنا هاي يوتيوب كينواي ومتشتغل مريضة وشقية يوتيوب كم فانتين مركا سحبتي إذا ما أنت فيديو أن كأم سوايا أرك والله مسكرين أو حساسية ولا إلى الدقسة أو إذا hooyadii guriga dib ka dhacay ilmaheeda hooyadii uu ku dhacay baan ahay ninkii qabay hooyadii dibka u geystay baan ahay waxaan la soo taaganahay oo ilaahay wajigiisa la hortagi doonaa oo aan hadda hore u sheegay oo aan hadda sheegayaa inaana wax arkin indhahay wax ku arkin labada dhigoodna wixii dhacayaana maqal fiiriya إلهي هرتس وحنا تجيا خراء وشاغل هذا أنا أشيريا واحدة عاية ما أركن هذا أركلها هذا أنت اللي سلمسوا جاري لهن هذا شرقت الجاري لهن وجود أرض يسوين يسقي إيمان لهن أنت اللي سلمسوا جاري لهن كيس كإنتان إني جادو أنا one of them بنك أحد صوبت أوقع هنا وحيد هاي آخر إذا أبغى وحارة من كده شيء لما مرة خلا أنت تاجن أو ربع يجونا شق قبصنايا وحي عتيت وقرايا ما دام عنده يجيس وحركين ما دام ده يجيس وحمقلين ما دام علمه يجيس وعبتين ما دام إنك يجلس وعبتين ما دام أنت يفول حميد ما دام السفت إسناهين ما دام حد مقتسين أمولها maamadan waxay ka dhawaajihayso kulay waa maqlaysiina umaleeha dad Soomaaliyeed ana waxa ku Soomaali badan hooyin Soomaaliyeed ayaa arrinkan bayaanahan ka cabnay ilaahay ma aragto horta sayga oo caruurta u dhashay Allah ku deesto qofta u nool yahay waxa fiican in ilmaheeda darteed u sabarto ilmaheeda darteed sababta ay ugu sabraysana waxa waaye markuu maanta si kala soo galo hatta hal wanaagsan ha ahaado hadoo rabo saxaabtay fiidiyowga ina joojiya ku soo naqday marka waxaan ka hadlaynay ilmaha hooyada markay ilmo dhasho kala tagida sayga ay kala tagaan qofta ka dhinto horta waa ka dhinto amar Allah ku yimid laakiin dadka oo saygooda nool yahay waxa fiican ilmahooda dartood inay u sabraan هذا دبعتنا هذا قبلنا يكعبنا يسمانتي دبعت حساسي إنه قادي نحكره نين أديكوا قبوا أدو حكوا سمي محدرين له حنون وحدرين له إمارة أقوى بدن وولي أوركتالك وقوي أوركتالك مركا والله أرنكاس وحكر أرن لقح ما دواي قبلنا ويكوس حنطة هرتو إذا سي أراستي وحصان وقلي nimanka Soomaaliyeed gabadhan maanta nimanka Soomaaliyeed ka cabanaysa waxay aga cabanaysan waxa waaye iyako og inay maaragtay ninkaas oo dulmoon yahay oo gardaran yahay oo qabiil yeelaha oo garab yeelaha hada shiiqyaal waaweyn oo jooga Minnesota ay ka sheeganaysa gabadhan ay leedahay bal shiiqow maxaad ku markaati furay waa run nin dulman oo kiliibki lagu haay cadeena lagu haaya لاسكما هاي لاسكما قبل لاسكما مصبدا
falka asoo ku dhex jiro gabadha kaamira guriga ugu xiratay maba u sheeginba markay ogaatay sheekada markay saanta kaamira soo gadatay guriga ugu xiratay kaamirada caddeyn waxaa laga hayaa ninkan falki oo suubinaya caddeyna laga hayaa marka waa la baaray gabartii waxaa kuri kaamirada la arkay marka meeqa caddeyna lagu hayaa dad ninkaasa wuxuu yeelanaa dadou yeelanaa bal gabadhaaniti anoo warka idinka sii waalin ila dhegasada caloosha ku huraysa wallahi xumaa decisionku waa adkaa haddaan maalintii arrintaas habeenkii markay dhacay 3 saac iyo bar habeenimay dhacay saa idiin sheegay hadda kahor aan maqlay almost 4 saac habeenimo rayd ayaan u lahaa inaan neeman waco صح booliisku waa imaan lahaa waa jeebayn lahaayeen xabsigaa lagu tuuri lahaa kabacdi hawshu bilaaban lahayd kaysku intaa islama soo gaari lahayn kaysku intaa islama soo gaari waayo gurigaa laga dhex qaban lahaa aniga ma doonin inay dhacdo horeyna waa u sheegay ma doonayn inay dhacdo riisanka aanan u doonayn waxay tahay ninkaan anigu u qabay oo ii imaan jiray ilmaa baan u dhalay oo guriga ii jooga xaquuq bay leeyihiin xaq bay leeyihiin ayaga qalbigooda in la ilaaliyo xaq u leeyihiin tan kale saan u ilaalina ayaga xaqina u ilaaliyo u leeyihiin wax aanan hubin inaan ku dambaaba ma doonayn ilaa haddana ma doonaayo kayskana aan ima quseeyo gabadhayda inaan saboorgariyo basaa u taaganaha saxaabtayda qiimaha iyo qaayaha loo ila socdo intaa ila socdinoo iska kay dhegaysta والحناقسنا always مركا حناقسنا سو غلا ميشا هذا انيغا نفتيدا مركا حناقسنا بان كهادلا انت كلا وعي قلنا عاليا كهادلا والله بالله وارن حساسي ارن laga xumaad waa gabadhan fiidiyowgeeda waa dheer yahay saacad 2 saacadood ku dhawaad socona qofti markaas u baahan waxay ka fiirsan kartaa hal hees meedii ka fiirsan kartaa hal hees meedii ayuu ka buuxa fiidiyowgan oo dhameystiran laakiin arrinka maaragta Soomaalida ku kacayso qatartiisa le gabadhan Soomaalida hadda waa badadaashay aniga waxa ku naagta hadda kor oo lagu dilay in iska soo noqoto gurigeeda iska timid sheekhyaalay u tagtay waxa la soo weydiisay wixii tira bal cunugeyga saas lagu sameeyay Minnesota iyo ahaday Mareykanka dhibaatada hadda kun bilaab dhibaatadan hadda ka hor waa socota ayaamahan baa socota hadda ka hor gabar kale oo idan la dili jiray wadaadday in soo weydiisay soo noqotay markay soo noqotay gurigeeda ku soo noqoto ninkii ogaado dila aanay taasoo kale u dilaay barkee guriga isla markiiba waxa ku olole qaadi laay aan ila saana sameeyay booliis inta ka waxtaa kama gaarle marka gabadhaneetay wax ku taxtikay u degtay waxa ku kaamira soo galatay guriga ugu xiratay taleefankeedana ku xiratay taleefankani kala socotaa markuu banaanka qof u degaysa iska dhigtay hoolee markuu saan dhimaageen wax ku waa ku soo gashay booliiskana waa u wacday marka dhibaato saaid waa wallahi bilaa xanuun saaid waa kaas marka ilaahay inta islaamka ka qaado hooyinka Soomaalida waa dhibaataysan yihiin hadda waxa ku nima u dhaxda hadda saas sameeynayo ya ki ilmi oo u dhashana ma laga ilaalina asaga in kaan aaba labaad ilmahan asaga loo dhalay ilmi la dhasheen way wuxuu waxaas ku sameeyay ya اللهم هي حنون طهي اللهم كاس أنا وح هاي عنقو مانتو ويسك جبنين الميس وحكر لدلتي أو باس كسوة كرايان الميس أسجي عنقاس مانت سيدير نك أو مارك أقاضي إنه مارك مرق فيه تدمعي يا مدافعي كو أسجي دلنا مدافعي أمسنا أنا مركا تبرقون شرواي أو حكر حنون ضدك هاي أو نمارك تنمنك غير مريك أبدا سيب قربها كودا النول مريكان waxa ku saaid ugu nool tabarqon jiraha jirta jiraha hayso kuwaas ma hane wallahi lama dhigi karo qof caafimaad qabta waxa sameeyayso marka ilaahay naga korsho waxyaabahaas waxa way arin xasaasi waaye magaalkiya kala cabsataa ma nin ku adiga ku dhaxayo adiga waxa ku ilmo u dhashaa kala cabsataa ma waxa ku beeyada meesha jirta kala cabsataa meeqa waay يا هدي أو مالك كوسا بربارو قال كسر فكذا هدو أبيه أتاعيا
aabi haddoo kasoo fakadana haddoo maaragta daroogas ay maraanka u taagantaha haddii intee tagnaa ilaahay maaragta inta islaama oo dhibaatadaas haysato ha ka ceemiyo laakiin gabdhow waxaa idinkala dardaarma inaa u sawirtiin ninka ilmaha kaa dhal kan ilmaha kaa dhalaa waxaa kura bey-aada ina ku bedesho aa ka orday waxaa kura xagga kasoo jeesanaysaa aa leeda maya inaan gooni isu taag waa inaan siyaalo waa inaan kii waa inaan aniga baawur gato inaan ilmahii korsado waa kooya waxaa isleeda xoogaa isku qabooji baahasha qabowday asleeda waxaa kura ilmahaadi waxaa kura u dhuukaaleysaa ilmahaadi dhibaato gaarsiinaya yaa wallaahi xanuun ka weyn ma jirto kaas marka videogan wuu dheeraaday abaayaalo dhibaatada allah naga soo gaaro quraanka akhrista iska waxaysta ninka ilmaha idinka dhalana iimaansadoo asaga waxa kura u umbe ilmihiis wax agaroon ma lehe marka videogan xanuunka igu qabtay ayaan u soo qaatay ilaahay maaragtay dhibaatada jirta allah naga soo gaaro waa idii salaama insha allah waa canshuuro idin leh wanaaga iyo waxa kura allah nagu dilo iyo diintaba allah nagu dilo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.